sheekh saylkan wuxuu soo qoray sheekh xaaskayga oo dhimatay iguna lahayd meherkii ma u sadaqayn karaa mise waa dhaxal طبعا ayadoo meherkii kule ayuu dhintay marka wuxuu leeyahay meherkaas ay u lahayd ma u sadaqeeyaa mise dadkii waratada ahaa oo dhaxalkeeda iska lahaa baa iska leh meherkaas بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرك حاسو أي لا ذهي وحولا حاسو أي لا ذهي الدين لو صاعي أو لا عيمه وقار لو صاعي وجدون تنا إياذا أي إسكالي أو ملكنيس ninkiina bari buu noqonayaa haddii aan la siinin ee la magacaabay waa dayn ninkii lagu leeyahay dimadiisuna bari ma aha haddii uu dhintana dayn buu la dhimanayaa waana arrin aad u khatar badan daynta in lagu dhinto oo nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabigii markii loo keenay wuxuu yidhi dayn ma lagu leeyahay habaa la yidhi xoolo lagu gudo ma hayaa mayaa la yidhi idinku ku tukada yidhi anigu ku tukan mahaye wuxuu kaloo yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam nafsu lmu'min marhuunatun bidaynih mucallaqa labada riwaayo waa jiraan qofka mu'minka ah naftiisu dayntii lagu lahaa ayaa xabsi ugu jirtaa qofka marka waxa la rabaa daynta inuu iska bixiyo inta uu nool yahay una degdego sidoo kale waxa la rabaa haweenta xaqeeda in la siiyo gabadhu ilaahay kuma dhihin xoolaha inkastoo curfigeedna gabadhu meherka haddii la siiyo ay u haysato reerku inuu kala soconayo oo curfi khaldan waay gabadhu xoolaheeda iyadaa leh xoolaha siiya ganacsi bay ku geli kartaa danbay ku qabsan kartaa xoolaheeda ilaahay kuma dhihin haddaan u soo gudubno marka arrinteennii xukunka ahayd gabadhii hadday dhimato iyadoo xoolihii kugu leh xoolahaasi waa dhaxal dadkii gabadha dhaxli lahaa baa xoolaha iska leh ninku haddii ay ku mehersanayd oo xaaskii uu yahay xaaskiisii qayb buu ku leeyahay haddayna carruur u dhalin oo carruur aysan jirin gabadhu haysan kala badh isagaa leh haddii ay carruur u dhashay ama cid kale ha dhashay carruur ay dhashay joogtana 4 meelood oo meel buu leeyahay xoolaha intii soo hadhay dadkii gabadha dhaxli lahayd ama waalid ha ahaada ama awlaad ha ahaada ama walaalo ha ahaada dhaxalka lahaa dadka ayaa la siinayaa adiguna ma sadaqaysan kartid xoolo aadan lahayn sadaqadooda lama ogola shardiga sadaqadu xoolaha waa inaad adigu leedahay wax aadan lahayn adigu ma bixin kartid tabarruc baa la dhahaa wax aadan lahayn kuma tabarruci kartid wabillahi tawfiiq